markii aan wasaaradda la wareegay afartii bishii afraad 2017 الوريجنتي waxay ahayd ama ay tahay sideeda waxay wareejin wasiir qaato qalabka wasaaradda hantida wasaaradda hantida guurta ma guurto dokumentiga wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda waxay aan dhaxlay way joogaan wuxuu ahaa buug iyo inta hadda meesha taala laakiin kuma shaqaynaynin inaan buug wareejiyo waayo warqad kaloo xafiiska taala ma arkin waxaan ugu talagalay fura maalintaas in wasaaradda structure leh waxqabadkeedana reeba raad reference u noqda cidda laga dambaysa kasoo bilow markaas way og yihiin agaasimo waaxidyada iyo labada qaybood ee wasaaradda ka kooban tahay oo aan wada shaqaynta laga dhexayso olombikada iyo goos iyo xiriirada iyo ururada madaxa bannaan ee dhallinyarada waxaa qalabkaas waxaa lagu aruurinayay agaasimo waaxidyada weliba waaxda qorshaynta iyo ICT-ga dokumentiga wasaaradda si beri raad u noqdo 3 bilood leh kadib 6 bilood leh kadib sanad waxaan u malaynaa agaasimayaasha ka soo shaqeeyey DG-ga iyo agaasimaha salaariga waa fadhiyaan 2018 marka waxaan ku fakernay in waxaan wax ka bedelan maadaama hadday noqoto dhalinyaro iyo isboorti dhalinyarada Soomaaliyeed loo yacday ilaa Raskamboni iyo qurbahaba sidii wax lagu gaarsiin lahaa inaysan ku filnayn social media iyo wax lagu soo bandhigo iyo television waad ogtahay in ay waxa la soo daynaya ay kooban tahay haddii wax ifanti u dhaco laga rabo dadka in loo soo gudbiyo jaraa'idka laftirkiisu waa kooban yahay laakiin nuqdadaas waa inay taallaa waayo waa guulo qaranka Soomaaliyeed uu gaaray uusan gaarin 30 sano ee la soo dhaafay inta qaran burburka ka horeysay guulaha la soo hooyay waxaa ka mid ah inay Soomaaliya ugu dambeysay 1987 waa dareemi kartaan marka fursadan inay u baahan tahay in hoosta laga xariiqo lana weyneeyo cid walba oo qayb ku leh markaan dhahayo gudaha iyo dabad dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada isboortiga ayaa qayb ka ahaa hadday noqoto qurbajoog oo hindisiya qurbajoogta lagu keenaya ah ama lagu geynaya inay ka mid noqdaan xulalka qaranka ayaa qayb ka ahaa soo gudbinteedaas marka inay raadraac yeelato wargeyskaasna lagu dhaqaaqo waaxda ICT-da marka laga tago agaasime Ayuub iyo waaxdiisa marka la soo dhaafana sidaasaa lagu magacaabay la taliyaha warfaafinta Maxamed Shuuri oo ah ka soo jeeda bahda warbaahinta Soomaaliyeed si looga faa'iideysto khibradda dhallinyaradeenna ku takhasusay howlaha warbaahinta fikirka wargeyska marka uu dhashay sidaa uu sheegay xildhibaan cabdifataax qaasim waa la ogyahay bajetkii miisaaniyadda haddana aan ku shaqayno inaan soo saarno 3 bilood leh 4 bilood leh bil leh isbuuc leh intaba waa ka fikirnay saas daraaddeed ayaa waxay nala dhaafi weysay taasaa marka ay ku timid in halkaan aan caawo ku wada kulansannahay waxqabadka marka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wuxuu ka imaaday aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
وحيكون عدهاي برنامجك رئيس الوزراء حسن علي قيري تاسع قيب كأ وحقبتك وزارة قرشولتك وزارة كل شقيس هرمرينتا دليرada Soomaaliyeed iyo horumarinta isboortiga Soomaaliyeed taas marka ay sheeganayna annaga oo intayna hadda meesha fadhido oo qayb ka taas ay ku caddahay waxqabadka xukuumadda ra'iisul wasaaraha taas ay ku caddaanaysa waxqabadka dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas markaa ka soo taga kadib farxad weyn ay ii tahay ama noo wada ahaanaysaa dhammaanteed inaan caawa wada joogno munaasabadda bandhigga wargeyskan tan iyo markii aan la wareegnay shaqadaas marka maalinba meel ayay soo joogtay waana midii aan soo wada qabanay idinkoo ku wada mahadsan wax kabeddelka aan ku samaynay hannaanka warfaafinta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ayayna qayb ka tahay taasaana la kulmisay caawa ugu horreyn waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo oo aan si gaara halkan ugu maamuuso isagoo nagana maqnayn mar haddaan dhaho waa agaasime waaxidka halkan ka hadlay Cali Michael iyo telefishinka qaranka oo ka mid ah warbaahinta halkan joogtay iyo agaasimayaasha kale ee isaga ku weeliya waaxyihiisa inaan ku wada shaqaynaynay marka waxaan rabaa inaan dhaho walaalkay oo cudurdaan aan ogahay uga maqan munaasabadan wasiir xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye agaasimayaasha warfaafinta xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo hadda naga maqan iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda inaan uga mahadceliyo soo diyaarinta munaasabadan iyo wixii aan la wadaagay intii aan soo diyaarinaynay waxaa meesha yaala warbaahinta gaarka loo leeyahay oo intii aan soo marnay iyadana sidaas oo la soo martay ee wada shaqaynta gaarka ah ay ka dhaxayso wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya